maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa hore waxa ay 3 sano iyo 6 bilood ugu xukuntay wariye samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon. qareenada Cabdimaalik u doodayay ayaa xilligaasi raacfaan waxa ay ka qaateen maxkamadda gobolka Maroodijeex iyagoona raacfaan u qaatay maxkamadda raacfaanka ee gobolka. haddaba xubinta falanqaynta warka ee caawa waxa marti iigu ah Mubaarak Cabdi Ismaaciil oo ah qareenkii u doodayay Cabdimaalik Muuse Coldoon. مبارك مركو ugu horeyso oo ku soo dhaweynaa Saab TV iyo waliba xubinta falaqeynta aadiya bambaasati walaal bal waxaad faahfaahin naga siisaa qaabka uu u dhacay xukunkii maanta aan Cabdimaalik ku dhacay markale maxkamadda raacfaanku ay deewn xukunkii hore maxkamadda gobolka bismillaahir rahmaanir rahiim aadiya baad maadsantihiin walaw aanan anigu saaka goobjoog ka ahayn ku dhawaaqista xukunka ku dhacay suxufi Cabdimaalik Coldoon oo aniga iyo maartay Jamaal qareen oo ahayn xukunkaas laba soo ogeysiin isaga laftigiisa in saaka xukunkiisa lagu dhawaaqayo sidoo kale walaw anigu aan shaqadii qaranimo muddo kooban joojiyay qareenkii kale Jamaal lama ogeysiin eheladiisana laguma wargelin in saaka maartay axad ahayd lagu dhawaaqayo marka dhinaca kale laga eego waxaan aaminsanahay in filaynay in arrin sidoo kale dhacayso waayo marka loo eego maxkamadaha Soomaaliland ama garsoorka guud ahaan dacwadaha siyaasiga ee dawladdu qaybta ka tahay iyo maartay shacabka dhaxdooda aad wadateen dhaxdhaxaad laga noqdo marka kiiska Coldoon oo quraama kiisas noocan oo badan kuwan oo kale oo badan ba maartay maxkamadaha soo maray oo dadka maartay maxkamadu ay adag tahay inay dhaxdhaxaad ka noqdaan go'aanka gaarista kiisaska noocan oo kale arinta laakiin aniga aadka iyo warwargelisay maanta maartay aan la yaabay waxay ahayd laba arrimood marka laga hadlayo nidaamka maxkamadeynta cadaaladda ama mabaadiida ay ku dhisan tahay wax loo yaqaan fair trial أمين محكمة النقطة ميد عدالة وحكم إن فردية محكمة النقطة كوا بابليك وفران أو بابليك يدك دقيستان ويكسر قيب قلان إهلاد دقيستان قرينة دقيستان سمارة هي واركان يعني كو مركب محكمة ده فير تراي أمين ممكن سببته واحد سنة يسمى محكمة ده قاب قرصودية جوان كيسون يقول واقع تحسين صور كله بيحنا سام وجهنا سام وأكيد نقول كور ورينا يعني كعب سيد قبلي أنا أنت لبعض أيضا لبت مارتي مقطع وحويين الرعفان بمحكمة الرعفان كان له سوقاتي أنا سوقاتي محكمة الرعفان كواحد يهيد ولو سوقات الرعفان كين الصحضة كوانضة محكمة حوسة لكن هدي يعني محكمة الرعفان حتى يلفتي وفير سنين أما يعني وقت الجلينين أما مارت يعني وحبك بدلين يعني عدالة كقارين وإحنا من سنة هي يعني إذا لفتينا عقبات نقعد نتذكر الرعفان كقادم ضل Coldoon قريقان وحو كتناسلي إن الرعفان دنبو قاطو محكمة السرية دلكا isagoo maxbuus oo xiran maxaa ka hor istaagay maxkamadda sare dalka uu raacfaan ka qaato wallahi aad baan uga xumahay Cabdimaalik Coldoon inuu xaqiisi dastuurku siiyay ee ahaa xaq raacfaan qaadashada ama xaq waxbarashada maxkamadda sare inuu ka tanaasulay sidii xaqiijinay isagoo wuxuu ku sababeeyay in maaragtay uu ka aamin baxay ama ku kalsoonay nidaamka garsoore dalka oo uu la muuqday inuu yahay nidaam aan dhaxdhaxaad ka ahayn dacwadaha siyaasiga ama eedihii loo haystay Coldoon maartay aan ahayn eedo cid lagu sheegay rasmiga aan kayma laakiin aha eedo maartay dawladdu iyadu gacanta kula jirtay ama ay ka dambeysay ay wadatay Coldoon marka waan ka xumahay marka hore inuu ka tanaasulo marka labaad wixii xaqiijiyay inaan maxkamad dambe abiil u qaadan doonin oo maartay xukunkiisa dhameysan doono taasna waxay tusinaysaa ummadda reer Soomaaliland iyo kala cadaaladda waddanka daneeya in kalsooni badan aan suxufiyiinta Soomaaliland ku qabin Coldoon kamid yahay inay u qaataan raacfaan maxkamadda sare haddii ay soo noqnoqdaan xukunada noocan oo kala maxaa ka dhalan kara la soo noqon kara gariiqa waxaan aaminsanahay inay cawaaqib xumo weyn ka dhalanayso taariikhdan wax laga bartaa muhiima dawladaha hore waxaan ku baabaa ama ku burburay ama jaalay dawladda Soomaaliland inay naga baabaado dawlad in badan in dhisayno iyo yabeena ay tahay laakiin dawladda lafteeda waxaan soo jeedin lahaa inay ku tusaale qaadato taariikhi kala duwanaa ama kala dambeeyay Soomaaliland soo martay iyo in dawladdu ay lafteeda ogaato wixii ay Soomaaliland u gooday ee maaragtay ama xorriyadda uga soo noqotay Soomaaliya inteedii kale oo ahayd in Soomaaliland ku noolaato xaq iyo xuquuqda bini'aadanimo marka labaadna xuquuqda dastuurku siiyay maaragtay in ku raaxaysan dadka reer Soomaaliland iyo in laga cararo garsoor aan ka madax banaaneyn waaxda fulinta ama dacwadaha siyaasiga oo dadka iyo dawladda dhaxdooda iyo dadka dhaxdoodaba iyo dawladda dhaxdoodaba markay isqabtaan u noqon karaya dhaxdhaxaad gaari karayana go'aano cadaalad oo lama hadiyo aad
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay mubaarak cabdi ismaaciil oo aan caawa marti noogu ahaa xubinta falaqaynta warka saab t v oo aanu ku soo qaadanay xukunkii maanta ku dhacay wariye cabdimaalik muuse coldoon.